maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxa ay dil toogasho ay ku fulisay laba nin oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab raggan maanta toogashada lagu fuliyay ayaa waxa lagu kala magacaabaa Anas Cabdulqaadir Cali iyo sidoo kale Aadan Mursal Maxamed waxaana labada nin muddo dheer ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ay u qaabilsaneen gobolka Mudug iyagoo halkaas ku laayay hal door fara badan Anas Cabdulqaadir Cali iyo sidoo kale Aadan Mursal Maxamed ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay dilkan toogashada ay ku xukuntay 23 bishii sagaalaad ee sanadkii 2023 iyadoo ugu dambeyntii maanta lagu fuliyay sida uu warbaahinta u sheegay xeer ilaaliye Xasan Siyaad Maxamed Xasan Tarsan maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bishii sideedaad 2025 waxaa lagu wada fuliyay xukunkii qisaasta ahaa kow Anas Cabdulqaadir Cali Maxamuud oo afgarashadiisu ahayd Salmaan ina Xaawo Axmed Nageeye laba Aadan Mursal Maxamed Macallin oo magaciisu afgarashada ahaa iidow 33 jir ah ina Habiibo Axmed Cali kuwaas oo loo qisaasay marxuumiinta kala ah kow Cilmi Cali Guuleed laba Ekis Nabadoon Maxamed Jaamac Maxamed Agabiyood saddex Ekis Nabadoon Cabdi Aadan Siyaad Cabdi Dhaare wabillahi tawfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waayihii ugu dambeeyay waxa ay si isdaba joog ah u fulinaysay xukunada dilka ay ku fulinayso ragga ku eedeysan inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo hore ay maxkamaddu ugu xukuntay dilka toogashada